salaamu calaykum dhageystayaal meel walba oo joogtaan iyo si walba oo maqalkeenu idin soo gaarayo halkani waa SOL Journal waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Agost 2018 ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha oo aan idin akhriyo anigoo Cabdirashiid Maxamuud Nuur shardinha Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay iska diiday dalab kaga yimid kooxda kubadda cagta ee Barcelona kaas oo lagu sheegay 50 milyan oo lacagta euraha ah iyo adeega labada ciyaartoy ee kala Yermina oo dhashay wadanka Colombia iyo sidoo kale ciyaaryahanka Andre Gomes ee ka soo jeeda wadanka Portugal sida lagu qoray website koriyaha caanka ah ee Gianluca Di Marzia Rodriguez ayaan doonaynin inay lumiso awoodda xidiga reer France kaas oo wacdaraha ka dhigay koobka adduunyada ee lagu soo gabagabay wadanka Russia sidoo kale kooxda uu hogaamiyay Jose Mourinho ayaa iska diiday sababtoo ah waqtiga oo ku yaraa maadaama ay walaac ka muujisay 3 maalmood inaysan ku heli karin beddelka xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Juventus kooxda Real Madrid ayaa doonaysa daafaca bidix ee kooxda Chelsea Marcos Alonso sida ay warinayso shabakada Domblon ee laga leeyahay wadanka Spain Los Blancos waxaa hareeyay muddooyinkii la soo dhaafay warar xan ah oo xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda la xiriirinaya kooxaha kale ee qaaradda Yurub dhawaan ay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in daafaca reer Brazil Marcelo uu xiisa ka helay kooxda kubadda cagta ee Juventus isla markaana uu jeclaan lahaa inuu mar kale ka dhinac ciyaaro saaxiibkiisii hore ee kooxda Cristiano Ronaldo kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid ayaa rajaynaysa inay hesho saxiixa goolhayaha xulka qaranka wadanka Belgium ee Thibaut Courtois kaas oo u muuqda mid ku khasbaya Blues inay iska iibiso xidig reer Belgium waxa qandaraaskiisa kaga haray kaliya 12 bilood tii ay jirto inuusan marnaba diyaar u ahayn inuu kooxda u ciyaaro fasalka bilaaban doono siday sheegayaan warar hordhac oo laga helay wadanka Ingiriiska Courtois soo maxadir shalayto oo isna tababarka kooxda sidoo kalena Marouzi Sarri ayaa u muuqday mid shaki gelinaya mustaqbalka xidigan ee garoonka Stamford Bridge wargeyska Telegraph ee laga leeyahay wadanka Ingiriiska ayaa qarin Blues ay u muuqato mid 100% ka quusatay qancinta Thibaut Courtois kaas oo adeegsanaya habkii uu Diego Costa uga baxay kooxda kubadda cagta ee Blues agaasimaha cusub ee farsamada ee kooxda kubadda cagta AZ Milan Leonardo ayaa shaaca ka qaaday in halyeeyga reer Brazil Ricardo Kaká uu dib ugu soo laabanayo garoonka San Siro Stadium balse waxa uu diiday inuu carabka ku dhufto haddii kooxda ay shaqaaleysiin doonto Milan oo yeelatay hoggaan cusub dhawaan ayaa bilowday qorshe ay ku soo nooleynayso guud ahaan moraalka kooxda kadib markii ay go'aansadeen inay fursad u siiyaan halyeeyadii hore ee kooxda sidii ay ula shaqayn lahaayeen maamulka cusub dhawaan waxaa door shaqo loo magacaabay halyeeyii hore ee xulka wadanka Talyaaniga Paolo Maldini kaasoo 10 sano kadib dib ugu soo laabtay garoonka San Siro sidoo kale Gennaro Gattuso ayaa ah tababaraha kooxda halka Leonardo uu xaqiijiyay in Kaká uu soo laaban doono Matteo Kovacic oo qadka dhex ka ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku biiray liiska ciyaartoyda fallaagada noqday ee diiday inay tababarka la qaataan kooxdooda iyagoo kaga dan leh inay kooxdooda ku qasbaan in la iibiyo sida lagu qoray shabakada Marca xidiga reer Croatia ayaa doonaya in loo ogolaado inuu baxo maadaama uusan aaminsanayn inuu boos ka heli doono shaxda tababara Julian Lopetegui sidaa darteed wuxuu diiday inuu qayb ka noqdo tababarkii shalay oo Isniin ay kooxdiisa yeelatay marka dib loogu laabto taariikhda dhow iyo midda fog dhowr ciyaartoy ayaa diiday inay tababar la qaataan kooxdooda waxaana ka mid ah Diego Costa, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho Dani Alves, Luka Modric, Gareth Bale, Luis Nazario da Lima Ronaldo, Sergio Aguero, Fabregas iyo sidoo kale Frank Ribery kuwaas oo dana gaar ah ka lahaa waqtiga ay diidayeen tababarka kooxdooda Manchester United ayaa talaabadii ugu dambeysay u qaadaysa saxiixa daafaca reer Belgium ee Toby Alderweireld kaas oo qudhiisa doonayay inuu ku qasbo kooxdiisa Spurs inay iibiso maadaama uu kaliya haysto 12 bilood oo qandaraas ah kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford ma doonaysa inay bixiso lacag ka badan 50 milyan oo lacagta pound-ka ah waxaana xusid mudan in 6 bilood kadib ay xidigan reer Belgium ku heli karaan adduun 25 milyan oo pound Jose Mourinho ayaa maamulka kooxdiisa u sheegay inay bixiyaan adduun 55 milyan oo pound haddii Spurs ay adkayso ciyaarta suuqa kaliibsiga isla markaana ay ku adkaystaan inaysan si fudud ku dhiibin 9 jirka heerka caalamiga hore u soo ciyaaray kooxda Atletico Madrid dhinaca kale Redivlis waxay gacan labaad ka dhiganaysaa daafaca reer Jarmal ee Jeremy Boateng kaas oo loo sheegay goor hore inuu ka bixi karo garoonka Allianz Arena ee ku yaala magaalada Munich ugu dambeyntiina Chelsea ayaa ku qasban inay bixiso adduun 89 milyan oo lacagta pound-ka ah si ay u hesho beddelka goolhaya Thibaut Courtois waxayna si fudud markaan ku heli karaan xidig reer Slovenia ee Jan Oblak sida lagu qoray wargeyska Mundo Deportivo ee ka soo baxa gobolka Catalonia Chelsea ayaa u dhaqaaqaysa saxiixa goolhayaha Atletico Madrid haddii Courtois uu ku qasbo in laga iibiyo kooxda Los Blancos iyadoo ay xusid mudan tahay in kaliya ay haystaan 48 saacadood Blues waxay ku hungowday Alisson Becker kaas oo qaatay go'aan uu ugu beerayo kooxda Liverpool waxayna ku qasbanaan doonaan inay bixiyaan qiimaha lagu jabin karo heshiiska Jan Oblak oo lagu tiriyo mid ka mid ah goolayaasha ugu fiican dunida kubadda cagta waqtiga